munaasabadan oo lagu caleemasaarayay nabadoon Xuseen Macalin Diyaad oo dhawaan loo doortay nabadoonka mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee deegaanada Jubbaland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo. munaasabada caleemasaarka nabadoonka ayaa waxaa ka soo qayb galay mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Jubbaland, maareeyaha garoonka diyaaradaha Kismaayo, salaadiin, cuqaal, nabadoono, haween, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. isimada dhaqanka nabadoonada iyo dhammaan waxgaradkii madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay nabadoon Xuseen Macalin Diyaad, waxaana ay ugu duceeyeen inuu eebo u fududeeyo mas'uuliyadda loo igmaday. ugaaska maanta aan caleema saarnay aduunkuna nala caleema saarteen Xuseen Diyaad aadan, waxaan rabnaa inaad nala xambaartiin, garabka nala qabatiin oo ka mid noqdo odayaasha Jubbaland. waxaan soo dhaweynaynaa nabadoonka sida adinka aad ugu dhiibteen aan u qaadaynaa waa qaadnay. waxaan leenahay nabadoon soo dhaweey dhammaan odayaasha dhaqanka ah meesha joogaanba inta joogtay inta maqanba haduu ku soo biiray oo Jubbaland odayaasha ku soo biiray waa la shaqeynaynaa. sidoo kale waxaa munaasabada hadal ka jeediyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jubbaland iyagoona soo dhaweeyay nabadoonka cusub. waxaan rajaynaynaa nabadoon Xuseen Macalin Diyaad inaad ku soo kordhiso Jubbaland wax wanaagsan, midnimay matalaysaa tani. waxaad aragtaa dadka reer Jubbaland dhammaan way ka soo wada qayb galeen caleemasaarkaaga. waan uga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba. waxaan leenahay ilaahay ha nooga kaa dhigo midaan mahadino. waxaan ku leenahay shaqo adag ayaa lagu dhiibay ama lagu idmaday, ilaahay ha kuu fududeeyo. nabadoonka la caleema saaray nabadoon Xuseen Macalin Diyaad oo munaasabada hadal ka jeediyay ayaa u mahadceliyay dadkii munaasabada ka soo qayb galay, waxaana uu sheegay in si cadaalad ah uu ugu adeegi doono mas'uuliyadda loo igmaday. waxaad ii muujiseen wanaag iyo sharaf ayaad ii muujiseen, taasna waan idinka mahadcelinayaa boqolkiiba boqol. anigana garabkiina ayaan taaganahay, Jubbaland garabkeedaan taaganahay. waad ugu tashanaysaan insha allahu tacaala inaan idinla shaqeeyo, danaha Jubbaland aan ka shaqeeyo ayaan diyaar u ahay. ayadana midda kale danaha Jubbaland aan ka shaqeeyo. Ismaaciil Bashiir Warsame, Jubbaland TV, Kismaayo.